بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta waxaana ku xigeenada guddoonka baarlamaanka xildhibaanada xubnaha golaha wasiirada ururada bulshada ardayda saxafiyiinta ciidamada amniga iyo guud ahaan bulshooyinka reer Kismaayo soo dhaweynta fiican ay maanta ugu soo dhaweeyeen magaalada Kismaayo. ilaahay baana mahad iskale subxaanahu wa tacaala. ilaahay annagana nabad nagu soo nabad celiyey. waan idinka mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad. waxaa kaloo mahad kulligeed iskale rabbi subxaanahu wa tacaala oo maanta shalay markaan halkan ka tegayeyna siigadu ay xidhnayd, maantana godadka biyuhu ku jiraan iyo cagaarku uu isxidhay. rabbi baana subxaanahu wa tacaala iskale waxa intaa leeg inuu hal mar bixin karayo. ha yeelatee nimco waliba nuqsaanteeda, laakiin maanta dhulku wuxuu xidhay quruxdiisii iyo ziinadiisii oo dhan oo maanta waad arkaysaan. ilaahay baa mahadda iskale subxaanahu wa tacaala. intaa ka bacdi anigu waxaan u baxay safar caafimaad. alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala. safarka caafimaad aan u baxayna natiijo fiican baan kala soo kulmay. ilaahay xanuunadii aan markaa u tago indhaha iyo u badnaa dawadeedii waan helay. iyadaasaana waxay ahayd waxa ugu muhiimsan oo hadda waxaan ka baxay 1dii bishii hadda dhammaatay yaan magaalada ka baxay. ilaa intaasna caafimaadka iyo arrintaas un baan ku daba jiray. taana waxaan ilaahay baa iskale shukrigiisa. ka bacdina dee ciddii ka soo qayb qaadatay iyo dhakhaatiirtii iyo cid kastoo iga taakulaysa waan uga mahad celinayaa. intaa markaan ka soo gudbo kolley xaaladda guud ee waddanku aad bay u fiican tahay. waxaanan isleeyahay safarkayga dhexdiisa waxaa hadda aad loo hadalay oo ka mid ahayd booqashadii hadda ugu dambeysay ee ku soo maray Ethiopia oo kale. taas oo isleeyahay iyaduna wuxuu ahaa mid wejiga fiican sax ku ahayd. weliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Ethiopia weydiisto ninkii qalbi dhagaxa Cabdikariin, isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagiina la kulmo kana wada hadallo insha Allah. ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay, kiiskiisuna uu si fiican ku soo dhammaan doono insha Allah. taas aan shacabka rabo inaan u gudbiyo. taa marka laga soo tago waddanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo bal xaaladda guud ee waddanku uu ku jiro iyo sida maanta ay wadcigu uu yahay siyaasadda guud. Soomaaliya waddan taariikh lagu ahaa. maanta waxaad aad u walaacaysaa markaad aragto dowladihii nala qayrka ahaa meesha ay marayaan iyo halka xaaladooda ay marayso. waxaa kugu dhalanaya dib inaad u fiirso taariikhdii shalay aan soo maray, weliba dadka yagii soo gaaray dowladnimadii Soomaaliya iyo siday ahayd, inaan aad u qoomamayno oon isu weydiinno xaaladdii shalay aan ku jirnay sida lanoo wada dhaafay iyo maanta meesha aan maraynahay. waxay keentaa wax badan dadku inay walaac badan ka muujiyaan. laakiin waxaan is leeyahay hadda waxay ku socotaa waddo fiican oo sanadihii ugu dambeeyey aan is leeyahay waddanku wuxuu horey ugu socdaa, bal in ay soo kabato oo Soomaaliya maanta marxaladdii ay ku jirtay marxalad ka bedelan ay maanta qaadato. taasoo aan is leeyahay waa mid qof walba oo Soomaaliya rajo gelinaysa oo farax gelinaysa ayay ahayd. waa qodobka koowaad ee maanta Soomaaliya markaan fiirino waxaa soo dhammaaday dagaaladii sukeeye, kii qabaa'ilka. waxaa nagu hadhay waa wax yar oo dagaallo firaq oo nimankan shabaabka oo kale iyo waxa kale soo raacay waa masaalix ama siyaasi ha noqoto ama masaalix kale ha noqoto, waxyaalaha la iskaga hor yimaada ka mida. taa waxaan aad ugu rajo weynahay inay noqoto shayga keliya ee qof kasta oo Soomaaliya ama mas'uul ah ama mas'uuliyadda Soomaaliya maanta ay saaran tahay inuu ka fakaro u baahan yahay. maanta bari waa tagaysaa, maxaad ka tagaysaa, maxay taariikhdu ka qoraysaa. hubaal waxaa qof kasta oo maanta mas'uuliyad Soomaaliya hayaay inuu bari tagay laa shak. laakiin su'aasha ugu muhiimsan waxa weeyaan
qof walba su-aasha la isweydiinaya berri muxuu kaga tegey taariikhda muxuu ku soo kordhiyey xaaladdu seebay ahayd maanta inteennana waxaan nahay mas-uuliyiintii Jubbaland waan garanaynaa shalay markii aan nimid ee shabaab ka xoraynay xaaladda ay ku jirtay magaaladan aynu maanta joogno Kismaayo iyo maanta xaaladda ay ku jirtay nolosha taala wax qof waliba maanta uu og yahay oo garanaya waxaan garanaynaa inay u ahayd xarun dagaalada sokeeye danaha sokeeye ee dadku isku haystaan iyo danaha shisheeyuhu ay ka leeyihiin intaba inay u ahayd ubuc ay wax waliba ka duulaan laakiin maanta waxaan gaarnay institutionno iyo sistamyo dhisan in intaan samayno aan beri kaga tegi karayno wax socda oo meel laga bilaabiyo meel loogu soo hagaagale iyo institutionadii dawladda oo meel ay ku shaqeeyaan iyo wax ku shaqeeyaan iskale waxaan isleenahay beri taariikhda idiin geli doontaa waana loogu iman karaya waa midaan isleeyahay maanta ma jiro gobolkan dagaal qabiil iyo masaalix qabiil iyo qabiil isku haysta midkoodna waxaa laga wada hadlaa ama la isku saxa ama la isweydiiyay waa dano iyo masaalix guud iyo seen wax u qabanaa iyo halkeen gaarsiinaa maanta halkaasaan taagana waxaan doonaynaa marka inaan horay uga sii soconno oo qaabkaa yeelno dowladda federaalka ee dhexe waxaan garanaynaa waxay soo martay dowladdii TNG waxay soo martay TFG waxay ka gudubtay waxay gashay dowlad aan ahayn ku meel gaar oo rasmi oo federaal ah intaas rag baa soo waday taariikh bay soo mariyeen ninba meesha uu gaadhay iyo halkuu gaarsiiyeen dowladda maanta taalla waxaa laga sugayaa taramkeedu markuu dhammaado inay ka tagto wax cad oo la taaban karo oo meel loogu soo hagaagale oo taariikhda u geli karaya oo ay noqonayso in berri xisaabtankeeda la garto dadku ay yidhaahdaan aleele xilligaas waxaasaa la qabtay cabdilqaasim wuxuu sababay in la isu iman karayo dowladdii TFG baa ka dambaysay waxay sababtay in caasimaddii la isugu tago oo balxamar la tago oo dowlad kumeel gaar ah oo meel laga bilaabo leh ay saldhig u noqoto waxaa ka dambaysay in dowladdii ay u gudubto dowlad federaala oo waqtigii madaxweyne xasan sheekh waxay noqotay inuu hirgeliyo sistamkii federaalismka oo ay noqoto inay isteydyadii kulligood ay dhammaystirmaan oo ay noqoto isteydyo iyo dowlad dhexe oo isku xidhan oo wada shaqaynaya dowladda maanta taagan waxaa laga rabaa horumarin iyo sii jiidid ay meel hore gaarsiiso iyo inay ka sii bilowdo oo berri iyaduna la yidhaahdo dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo iyaduna waxay gaadhay sidaa iyo sidaa iyo sidaas iyo intaas macnaha aan uga jeedaa waxay tahay maanta marka aan ka hadlayno mas-uuliyadda dowladda iyo dadka iyo kulligoodna saaran ama mas-uuliyaadka jiraa waxay yihiin markaan wax iska weydiino waddanku waa federaal ciidamadu waa federaal sistamku waa federaal isteedyaa la sameeyey mas-uuliyaadku way qaybsan yihiin maxay u qaybsan yihiin wax dowladdii dhexaa iyo wax isteedyadii qaadanayaan iyo wax noocaas oo kalea dowladda dhexe waxay taagan tahay mansiladii aabbaha oo kale marka waxaa looga baahan yahayna waxay tahay isku xidhnaan isku soo duubid isu keenis iyo in la dhaadhiciyo mas-uuliyaadkii iyo waxqabadkii iyo wixii dadka loo qaban lahaa maanta waxaan aad uga xumahay colayska ugu badan inuu ku dhacayo dowlad goboleedyada waxa ugu badanee maanta culayskana saaran annaga uu yahay risooska annaga aan leenahayna soo galaan inuu aad u yaryahay waddankiina loo aqoonsan yahay inay dowlad dhexe jirto wixii iyadu qaybinaysa dowladdii dhexana laga yaabaa wax iyada soo gaadhay inuuna iyadaba soo dhaafin laga yaaba maanta ase Jubbaland waad garanaysaan baaxadda dhulka uu leeyahay iyo sida uu yahay iyo maanta culayskana saaran waa meesha keliya gobol dhan oo dhammaystirani uu maanta ka maqan yahay gacanta dowladda ee uu ku jira shabaab ee u suurtagelisay in shabaab madaxdoodii iyo cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo dhaqaalahoodii ay halkaa isugu geeyaanoo intay doonaan waddanka ay sii dhibi karaan inay gaadhsiiyaan ayna noo suurtoobi laadahay marka inaan tallaabo hore u qaadno iyo wax la sameeyo oo mas-uuliyaddii dowladda dhexe aan isleeyahay wax badan inay ka dhiman tahay sidii la doonayay iyo qaabkay ahayd duruufaha kale ee yaalla iyo dhibka jira waa midka aad arkaysaanoo maanta in dowladdii dhexe wax naga soo gaadhaan ama wax ka yimaadaan ama waxa soo gaadhaa uu fulo oo isteydyadii iyo gaadho cid waliba ay waxa ay leedahay gaadhaay aad bay u adagta
ma doonayo ma aha iga dhaliil aan dowladda dhexe dhaliilayo laakiin waa toosin iyo sixitaan marar badan aan iyagana kala hadlay oo aan doonayno dowladdaasi inay noqoto dowlad taariikhda muddada ay jirtay gaadha marxalad adag oo cusub oo dadku beri lagu sheekeeyo ma aha inay ka tagto social media iyo propaganda iyo Facebook iyo maxay hala sameeyo iyo maxay hala raaco inay intaasi noqoto shaqada dowladda waa wax aad looga xumaado saxna ma aha taas marka waxaan is leeyahay arrintaasi waxay aad ugu habboon tahay inay dareento dowladda dhexe mas-uuliyaadka saaran dowlad goboleedyada culaysku inta uu leegyahay waxa looga baahan yahay wuxuu yahay iyo dowladda dhexe waxa laga sugayay maanta dowladda dhexe markaan Jubbaland ka hadlayo ma garanayo waxa naga soo gaaray muddada hadda ay jirtay waa wax aad u kooban marka laga reebo shaqaalaha rayidka ee World Bank ay mushaharka siiyaan iyo ciidan SNA oo dhowr meelood jooga ma garanayo cid kale oo maanta dowladda dhexe fanaha naga soo gaana haddii la yiraahdo waxa la sheego oo wax aad u kooban muddada wax maanta naga soo gaaray waxa anaga nagu dhacayana waad garanaysaa ha noqoto mas'uuliyiin golo wasiiro golo baarlamaan shaqaale dowladeed oo kale waxbarashadii arrimihii bulshada waxaasoo dhan dhibaatada kale ciidankii mushaharkiisii iyo logistikadiisii oo weliba gobolkan ciidanka ugu badan istay leeyahay isagu iskale intaasoo dhan maanta wax gacantanada laga sugayo way annaga ay yar yihiin dakhligana soo gala iyo waxaana soo gala maanta dekedaas ayna lahayn dhaqaale lagu xisaabtami karo oo soo galo la odhanayo resource-kaasay leeyihiin oo dhaqaalahaas la soo galaa waa wax kooban waan xadidi karaa muddada dowladda federaalka waxa naga soo gaaray intay leegtahay iyo siday tahay taas markaa waxaan is leeyahay waxbaa la sheegaa dowladda waxbaa soo gaara waxbaa laga hadlaa inta badan laakiin waxay ku kooban tahay iyada iyo systemkeeda dhexdiisa waxaa nasiib darraa midda labaad waddanku inuu maalin walba galo crisis political crisis iyo constitutional crisis oo hadda isaguna weji kale u bilaabmayo speaker baa kana dastuurkii la waa la xaday ku kala kan la yidhi waa la sameeyey kulligeed waa wax dhibaato ku ah jiritaanka waddanka iyo wixii la hiigsanayay aad bay dhibaato ugu tahay waxaan is leeyahay arrimahaasi waa arrimo u baahan dowladda dhexe inay ka fakarto oo isweydiiso oo laga hadlo la yidhaha war aan wax dumino iyo kanaan keenno iyo kan aan ridno iyo kanaan kala tuurno sax ma ee maxaan dhisnaa maxaan hagaajinaa maxaan tarnaa xaggeen hore ugu tallaabsanaa in lagu fakeray asal tahay in crisis maalooba lagu bedelo la yidhaahdo intaasaa la sameeyey waxaan odhan lahaa dowladda dhexe bal dib ha u xisaabtanto dowlad goboleedyada dib ha u fiiriso iyadu dib ha isu fiiriso waddankana crisis kale ayaan la gelin ama constitutional ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdee ha loo fakero dadku horay ha la fiiriyo aragti horey u socotana ha la fiiriyo taariikhda kuwii ka horreeyey ay soo mareenna nin waliba maanta inuu qaato taasaa asala waxaa timid arrimaha hadda ugu dambeeyey oo duufaanaadka iyo fatahaadaha dhacay iyo arrimahaas oo kale fatahaadda iyo dhibaatada noocaas oo kale waa masiibo qaran waa wax dadoo dhibka soo gaaray biniaadanka daciif iska ah markuu jafaaf dhaco waxaa laleeyahay abaar baa dhacday la soo gurmado hadduu daad yimaadana daadad baa dhacay la soo gurmado ma xamili karayno wax yar dowladda dhexe waxaa saaran laakiin mas-uuliyad oo ah inay ka gurmato oy caalamka la hadasho oy gaadhsiiso oo ay ka hadasho waxa dhibaato sida arrintii hiiraan ka dhacday oo kale tan maanta gobolkan ka dhacday oo kale ama meelahan xorta weliba anoo u cudur daaraya gobolka Jubbada Dhexe oo maanta kulligiina ay shabaab gacanta ku hayaan dhibka ugu badanna meeshu ka dhacay ay tahay gedo oo kale sida hadda Baardheer iyo Doolow iyo fatahaadaha ka dhacay intan inoogu dhow hadda Yoonto iyo waad aragtaa waxa ka dhacaya meelaha qaarkood Joorre oo kale way jirtaa waxaasoo dhan waxaan la hadlayay saaka Dhoble oo kale meel dabaal xataa dadku isugu gudbi karaan meelaha ku xareersan oo kale waa wax dowladda dhexe rabo inay baaqeeda iyo waxay ka gurban kartiyo kulli ka soo jeediso laakiin maxaa yaala dowladda waxaa rabo inay guriga albaabka ka soo gasho waatul biyuut min abwaabiha guriga iridaa laga soo galaa waxaa fiican inay u muuqato dowladdu mid systemka ka hooseeya ee iyada la shaqaynayana xaq dhowraya dadkeedana u gurmanayso xaq dhowraysa laakiin hadday u muuqato in iyadu si kale loo isticmaalay dhibkeeda leedahay waan uga mahad celinayaa qoladii shalay Baardheere iyo Luuq iyo tartiib ra'iisul ku-xigeenku iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waase shaqadii aad lahayd inaad qabateen waxaase ka sii fiicnayd idinkoo guriga iridda intaad ka soo gashaan
maamulka iyo systemka meesha ka jiray iyo dhibaatada taala guddi baa la magacaabay madaxweyne ku-xigeenaha joogay guddoon baarlamaan baa jiray maalindhooda wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo rag kalaa tegey inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxeeyo ma aha inaan annagu baardheer wax u diidannahay inaan gado wax u diidannahay inaan jubbada hoose wax u diidannahay maya waxaasoo dhan midna maaha ee waxaan rabna waxay tahay waxaa la qabanayaa inuu noqdo wax dadku kalsooni iyo wadajir iyo midnimo lagu ilaalinayo gobolkaani waa xasaasi waa gobollada soomaaliya ugu baahan in la ilaaliyo wadajirka iyo midnimada lagana ilaaliyo firqada iyo qabiilka iyo dareenka noocaas inuu soo baxo waa aad ba xasaasi u yahay taa markaa dowladda anoo uga mahad celinaya wixii caawimaad ay geysteen haddana waxaan leeyahay guriga iriddaha laga soo galo waxaa jira oon rabaa inaan qodob yar wax yar ka hadlo arrinta khaliijka oo aad loo soo celceliyo arrinta khaliijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo markay arrintaasi dhacaysay wuxuu joogay magaalada kismaayo talo ii weydiiye waxaan ku ihi madaxweynehu waagii masar la yidhaah loo wada gooyo xidhiirka maxamed siyaad bar allah u naxariistay wuxuu yidhi maya wuu diidey anagu dhexdhexaad baan ka nahay uhi arrintaas masar in loo gooyana sax maa carab oo dhanna way u geysay waxaan ku yidhi arrintan qadar iyo barnaamijkan dhacaya waxaan u baahannahay inaan dhexdhexaad ka noqono dhexdhexaad aan istaagno meel dhexaan istaagno aan ilaalinna inagu sharafteena wixii markaa weliba dhexdhexaadin aan ka geysan karra aan ka geysano sha wax saxa maa ta asalkeen aan ku talinaya taasay ahayd ma aanan u jeedin in qadar la cunaqabateeyo oo la go'doomiyo oo meel laga rido oo lala dagaalamo ama imaaraad iyo sacuudiya sidan la yeela midna ma ahayn qorsho laakiin waxaa isweydiin leh arrintaasi ma u socotaa sidii shalay qorshuhu ahaa maya way kala xigtaysatay dowladdu qadar jufaa lala noqday kuwii kalena waa burca tuugo oo sidan oo kale oo dhibaata ka dhacday aan miisaanka saarra markaa war annagu soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidda iyadu ay noqoto iyo dadnimada iyada iyo dowladnimada iyadu midda la isku haystay dhibaatada laga geysanayo shay saxa maaha hadday noqoto qadar iyo maanta imaaraad iyo sacuudi iyo marka dib miisaanka loo saaro shalay soomaalidu markay bururtay dhaqaalaheedii intii ganacsi iyo xoolo lahaa imaaraad bay la tageen iyo sacuudi shalay markii xawaaladaha la joojiyay hantidii soomaalidu imaaraad bay ku badbaaday maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socdaay waa imaaraad iyagaa maanta ay naga soo gaaraan jubbaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab noo siiyey ama tababare ama dugsiyo dhisay ama waxtar geystay weli maanaana qadar foundation qolo la yidhahda wiil maalin la iga tuso isagana wax intaa dhaafsan kumaanan arko dee wuxuu xaggay tahay aan u xilannay war maxaan ugu xilannaa waxaan isleeyahay shay saxa ma aha dhexdhexaadnimadii waa laga baxay waxaa laga sheegayay berigii waqooyiga aad buu uga taagnaa yaa nin agaasimo guuda hadlo wuxuu yidhi bbcda aad waxay uga falanqaysay oy aad uga sheegtay waxay tidhi arrintaa horgeysa waxa ka dhacaya waxaasi aad u sheegtay nin baa hadlo wuxuu yidhi dee walaalehen reer waqooyi dowladda ingiriiska habeen bay inaga xigaan buuri marka waxoogaa dowladdii qadar bay jufo la noqotay waxoogaa waxaad moodaa inay laynkaas xawaaladiina ay dagaalka ay gashay taa marka waxaan leeyahay arrinta khaliijka dowladdu dariiq saxa ma ku ah waxay ku dhaqmaysaa ama dib ha ugu noqoto waddadii ama hadday noqoto annagu aase jubbaland iyo soomaaliya waxtarkeeda baq maanta imaaraadkaa nooga waxaysa markaan sidaa leeyahay shalay waxaan ahaa qofkii dhexdhexaad lahaa weliba imaaraadka ka diiday cid walba ka diiday bosishankii si cad uu ahaa laakiin dee markay noqotay hagoog xun inay meeshii timaado dee nin walba cidda annagu maanta waxba kuma qabno waxaa laga hadlaye xamar rabehe waa la gaarsiy aad baan ugu faraxsanahay walaalahana muqdisho in wax la talo in la siiyo laakiin wixii inay noqoto intii la isticmaalo meel kale in system dastuurkii lagu dumiyo baarlamaankii lagu dumiyo social media oo noqday isaguna wax kale taysul mustacaarka lasoo kiraysanayo ti meelaha kale laga yimaado sidii shimbirkii qaaqdahaye meelaha qayliyaya wixii waxay noqotay markaa maanta waxaa laga hadlayaa facebooka maxaa ku qoranayo yaa la caayay yaa la sameeyey dowladnimada soomaaliya waxaan aad ugula dardaarmay madaxda soomaaliya dowladnimadu social media ha ka baxdo oo system iyo dowladnimo iyo wax la taaban karaa la timaado waxaasoo dhan markaa wax u baahan in dib looga fakero dowladnimada soomaaliya waxaan ku talinayaa systemka maanta jiraay
inay dib u fiiriyaan xaaladday marayaan iyo dowladnimada Soomaaliyeed meesha ugu yimaadeen iyo meesha ka tageen waxaan rabaa international community inaan u jeediyo war waxa Soomaaliya lagu bixinaya aan isweydiino ma dowladda federaalka ma gaarsiisaa waajibaadkeedii ma fulisaa dadka wixii ka dhaxeeyay ma gaarsiisaa mise wax iyada ku kooban oo dhibaato dadka loogu geysto oo mushkilado waxaan maqlayaa hadda waxaan African Union Security Council baa qoraal soo saaray oo laga hadlay kala wareegga ciidankiisa bal state baan nahay stateyaa jira ciidamada ugu badan baa jira wixii anaga gacanta ku hayn xataa tala ku malihin hal meel kaga ma xusna waxaa la isugu tagay Brussels waxaa laga hadlayaa Soomaaliya intaas la siin kana la yeelaya maxaa la ilaalinaya xagee dawladdu wax ku wada iyay gaaraan yaa wax la siiyaa waxay la tahay inaan si dhab ah u xisaabtanaan diyaaro anu waxaan diyaar u ahay dawladda dhexe waxaan aqoonsanay waalidkii waxaan aqoonsanay dawladdeedii horey baan u sheegay xataa mabaadi ahaan waxaan rumaysnaa waxaan u socdaa maanta inaan raadiyo taariikh ka tagno laakiin anagu social media uma imanin kamana shaqeeyo waxaan qabanaynaa ma aha intaas aad baan idinka mahad celinaya waxaan rajaynayaa reer Jubbaland yaa dhexdeena la gel inaan dagaal sokeeyo ku noqon yaan la isku kaandirin yaan waxba qabaay loola waxayn yaan la samaynin ebelow kaala iyo kana dacayad loo sameeyo kana xal la siiyo kana lagu diro midna waxba uma waxisnaan intaasaan soo wareey salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh